Somaliland dabadi wanaagayda qalday si wayto xanta u dhameen digodi yaqaan foodu dhaafeen allow munaasabada tan waxa aynu ku furan doonaa marka hore aayado quraana oo uu inoo akhriyo Siciid Xaaji Jaamac. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان اللهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ولا يبغونها عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. استي علنكا سوماليلاند. waxa aan u yeedhayaa gudoomiyaha jaaliyada UK Abdullahi Qadaafi oo martida leeyahay Israaci marka hore martidaynu Israacinina waa hagaaga Abdullahi Qadaafi ku soo dhawow jaaliyada UK. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم فليا هذا البدن لما بحنا وهاي قدوميا عاور يسرنا ومشرحة أنا وهاك وحسوا تاجون أنا جيك حيان كي بعد فلنا إصبر الشبر كوهريسا أنا قد لوا وحلا درت قدوميها شعليات المرشدة الصومالية ده ودك UK أو مع هذا إمكا حتى الواحد وكيل كهاي قدوميا لفتيس وهاي UK بتشوجا waxaan anagu ballan qaadaynaa sida xisbi iyo shacbiga Soomaaliyeed dhamaantood waa noo sameeyeen xisbiga wicid waanahay kulmiya waanahay wadanina waanahay mid walba waanahay waxaanu ka shaqeynaa isku duubnida shacbiga Soomaaliland meel kasta ka joogaan dalka UK taasa lagu ogaada aykaasi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa dadkan sharafta badan ee qiimaha badan isugu yimid xafladan aan ugu tala galnay musharaxa madaxweynaha xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee ucud waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtigiina qiimaha badan ee sharafta badan ee aad na siiseen waxa kale ee aan halkan aan idin sheegaynaa xisbiga iyagu ma aha xisbi ku keeban oo kaliya reer
ama qabiil ka soo jeeda xisbiga iyagu waa ka keliya ee ka soo horjeeda qabyaaladda ee aan ka soo horjeeda inay la reer loo fadhiisto musharaxeena madaxweynaha injineer Faysal Cali Waraabe wuxuu noogu ballan qaaday inuu baabi'in doono qabyaaladda meel kasta oo ay Soomaaliland ama reer loo fadhiisto ama caaqil ay ka talinayaan waxyaalahaas oo dhan ka soo horjeeda annaguna waxaanu idinku ballan qaadaynaa maadaama aanu nahay haweenkii xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee ucud qof kasta oo reer Soomaaliland waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan iyo laab furan xisbigan waa xisbi ka dhaxeeya ummadda reer Soomaaliland oo dhan meel kasta ay dunida ka joogaan haddaan idinku noqdo qadiyadeena Soomaaliland waxbarashada oo kale haddaan idinku noqdo waxbarashada Soomaaliland dawladdeena imika haysata waxay tiraahdaa meel badan ayaan free ka dhignay annagu waxaanu ku tala jirnaa inaanu meel walba iyo tuulo walba iyo geed walba hoostiis inay la helo waxbarasho free ah oo meel walba laga helo inuu macallin joogo oo la fangareeyo oo aanu insha Allah aan u diyaarino budget ku filan iyo magaalada aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba iminkana waxaan u yeedhayaa oo aan marti sharafta ka mid ah maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Somaliland Cabdicasiis Cagaweyne oo caawa marti halkan inoogu ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى إنه هانتي marka uu horeyso waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha xusbiga cadaaladda iyo daryeelka ahna musharax xusbiga mudane Faysal Cali Xuseen gudoomiye ku-xigeenka Saciid runaantii gudoomiye ku-xigeenka saddexaad xusbiga dhammaan mas'uuliyiinta oo dhan hablaha qaaliga ah runaantii iyo dhammaan inamiyo odayaalba runaantii waxaan aad iyo aad salaanta ka bacdi aan marka u horeysa ku soo dhaweynayna dalka UK oo martidaas soo dhaweynaysa aan kamid ahay gudoomiyaha xusbiga runaantii ku soo dhawo gudoomiye runaantii inta ka bacdi waxaan miisaamayaa oo hadalka aan ku darayaa in waxa weeyaan hadalka qaadhaanka ee abaaraha iyo dadkeena tabaalaysan runaantii waa dib wadnaheena taabatay waxaan dadweynaha dalka UK si sharaf leh uga codsanayaa in ay dadka loo kaco oo la gacan galo sidii dadka wax loogu qaban lahaa dadka abaaraysan ilaahay baa wax qabanaya subxaanahu wa ta'ala in dadkuna ay wax u qabtaan waayo dadkan dibaduhu waa dadka had iyo jeer markay dhibaatamaadaba dadka lagu baxsado weeyaan inta waxa noo dheer runaantii waan waqtigo aad u yar aawadeed runaantii waan hadalka ka baxaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminkana waxaan u yeedhayaa oday ka mida odayaasha ugaasyada magaalada oo aanu saaxiib nahay Haaruun ugaas Haaruun baan u yeedhayaa iminkana isaguna laba kelmadood oran doona insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مركو هوري وحن سلام يا ددونا شرفت له حفلة قالي أو كسوقيب قالي ملبادنا وحن كسو دوينيا قدوميها حسبك أعد أحنا مشارحة مدحوينها حسبك أعد وآدي سو دوينا أيوه intaadii aan ku dhaafo anu waxaan ahay gudoomiyaha guddida abaaraha ee UK waynu ognahay wadankii Somaliland waxaa ka jira abaaro aad iyo aad u xun ilaahay waxaan ka baryayaa in abaaraha inaga dulqaado oo roob degdeg ah aynu siiyo abaaraha Somaliland waxaan jecelahay qof loo sheeganaya Somaliland inuu u damqado walaalihiisa gaajoonaya waxaan kaloo jecelahay
dadkeena Soomaaliland ee gudaha ku jira oo caawa xaggan fariin aan uga diraayo ay ugu horeyso dawladda iyo dadweynaha kale ee reer Soomaaliland iyo xisbiyadaba inay u damqadaan dadkooda abaaro hayaan oo ay muddo bila ay joojiyaan xafladaha iyo ciyaaraha la sameynayo in la joojiyo oo dadka maanta abaaraysan ee walaayaheena inaynu la qabno xanuunkii qabaan oo loo gumidaan furaya waxaan jecelahay hadalkii aan ku soo gabagabeynay haynu ilaalino midnimada Soomaaliland iyo qardinada Soomaaliland ilaalino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah waxaan aad u soo dhaweynayaa murashaxa madaxweynaha xisbiga Ucud mudane Faysal Cali Xuseen mudane gudoomiye ku-xigeenka xogayaasha xisbiga marti sharafta xubnaha iyo dhammaantiinba kullay waqtigu waa yar tight weeyaan waqti kama baan haysanaa waxaan igu xigaan filayaa gudoomiyaha inoo sharxi doonaa wax walba waxa maanta socotay xeerkii bankinka ee Soomaaliland dabcan taas waa xogay waxaan hay ganacsiga oo way khusaysaa maanta waxa hor yaalay baarlamaankeena xeerkii bankinka waxa ceeb ah in ummadda Soomaaliland oo ummadaha kale si walba uga dambaysa adduunkeenu ka takhallufnay arrintan waxa xasuusay qarnigii 20aad waqtigii Ingiriiskeenu ahayn protectionka ee yiraahdeen jaamacadda sameynayna ee qaar kamid ah odayaasheenii waagaasi iyo wadaadadii ay yiraahdeen caruurtan gaalo laga dhigaya taasina waxay nageysay ilaa maanta inuu ka hadno rukabka tacliinta ee adduunka tan kontumeeyaha dalka dal ee muslimiinta ee adduunka ku filaysan oo kamid yahay Saudi Arabia Imaaraadka Turkiga isku wada Malaysia waxay wada leeyihiin laba nidaam oo bankinka conventional bankska adduunka iyo waxa jira imka system lado Islamic bankinka marka laga hadlayo ribadu waa xaraan weeyaan laakiin taa macnaheedu ma aha in dalkeena aanu xidhno ma aha in ummadaha adduunka ka takhallufna ma aha haye ma qabo waxa ay culimada kontinka dal ee muslimiintii from Imaaraadka ilaa Indonesia waxay saxeexeen oo ogolaadeen iyo fatwadooda in ay ka mudan tahay qayb yar oo kamid ah wadaadada ku sugan Soomaaliland ee runtii ku mamay gacanta kula jira hantida ummadda taasna waa taawayaan sharcigaasi in la ansaxiyo oo xubnaha baarlamaanku ay gacanta u taagaan waxa Soomaaliland ka saarsaa god dhaqaale adduunka ay nagu soo xirsaa bangiyada adduunka nagu soo xirsaa adduunka aynu la jaan qaadinaa shaqana kuma laha ribadu waa xaaraam islamic banking system baa jira taas waa taa weeyaan dabcan mowqifka xisbiguna waa clear xaggaasi wax waloo Soomaaliya waxa taraya sanu sportkeena saldhiga military waxaan jeedaa DB Wade oo gudoomiyahaygu injineer Faysal ka shaqeynayay aanu aragnu ka jirnay hawshaasi aanu geedaba fulnay in ay suurta gasho investment ku weynaa abi taariikhda Soomaaliland $442 million de wax lagu riyoon karay ma saldhiga military investment kaas ayuu laabanaya Abubakar baan u yeerayaa falyatafaddal ya Abubakar bismillahir rahmanir rahim Cabdiqaadir aad buu mahadsan aad iyo aad waxaan soo dhaweynayaa madaxda sharafta leh ee gudoomiye Faysal Cali Xuseen hogaaminaya musharaxa madaxweynaha xisbiga Ucud in aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa London waxaan kale soo dhaweynayaa madaxda kale ee ag fadhida ugaas Haarun gudoomiyaha SSUK iyo madax sharafta kale ee aad u faraha badan ee halkan joogtay iyo madaxda xisbiga dhamaantoodba waxaynu ku jirnaa waqti adag Somaliland duruuf adag baynu maanta ku jirnaa duruufta adag waxa weeye abaartii dabadheer ka culus ayaa dalkeena ku habsatay ilaahay hay naga kor qaado ilaahay naga kor qaado waa aaminta dhax waxa weeye ilaahum bay naga badbaadin karaa waxa weeye wax bini aadan bixiya wax badan ma taraan ilaahay hay naga kor qaado waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cayimaadii la cayimay muddadii doorashada hadii beedankeeda leeyahay lagu cayimay maxay ahayday waqtiga dhici doonta November 17 ha noolaato Somaliland والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka imika waxaan u yeerayaa isagana alfanaan alkabiir nuur daalacay oo isaguna laba kelmadood halkan ka oranaya السلام عليكم
anigu hadalka kuma fiicnay inta badan waxaan ka yimid magaalada dhinaceeda kale waxaan u imid gudoomiye Faysal oo aan si gaar ah oo maaragtay gooniya ugu hambaliyeynayo uguna mahadnaqayo hawshii istaba joogga ahayd ee xiriirka ahayd ee uu waddanka u qabtay bilihii u dambeeyey waxaan daawaday isagoo awalba ahaa nin halkan naga yaalla qalbiga oo ah gaarhayaha dalka haddana Faysal waxaan daawaday isagoo Jabuuti jooga oo khaatumo shirkeedii ka qayb galaya oo haddana soo noqday oo dhulka soo maray oo Cali Khaliif kaga hortagay Laascaanood oo haddana dhulka soo maray oo berbere tegay oo raashinkii soo dhaweynaya oo haddana ka noqday oo Burca jooga oo Burca tegay oo dadka saa maartay waddanka muddo yar oo haddana yimid oo haddana Colombia tegay Faysal aad baan ku hambalyeynaa waan ku mahadnaqaynaa Somaliland dalini way eldamantood siday u dheesteen dhulkoodii nabada u dhirbeen alawdow amin Somaliland dalini way eldamantood siday u dheesteen dhulkoodii nabada u dhirbeen ودررتي لتاجي لدي على كني لان كنو نبض كسري ودررتي لتاجي لدي على كني لان كنو نبض كسري وما هدافها ولا قدسها وحيد عيارها لكي سعيها وثاني قربتها الله فيصل وما هدافها ولا قدسها وحيد عيارها لكي سعيها وثاني قربتها الله دور صومالي على الله دور امين Somaliland labadi wanaagayda qalday siday turxanta u dhameen digodiya qayrkoodu dhaafeen allow dhowr amin Somaliland labadi wanaagayda qalday siday turxanta u dhameen digodiya qayrkoodu dhaafeen allow dhowr ودررتي لتاجي لدي على كني بلان كنو نبض كسري ودررتي لتاجي لدي على كني بلان كنو نبض كسري yes وما هدافها ولا قدسها وحيد عيرها لكي سعيها ودني قدمتها الله وما
ضافها وناقة بسها وحيد عيبه لكي سهيها ودني قدوتا اللو دور اللو دور صومال الآل اللو دور هاي كمون يا سعيد هاي يا سلام نوركيغا والك سعيد يس Somaliland dahalkii awoodaashay وقعبتني ايدك استين دبني عيب iska dawleen igsokeyay ka darteen Somaliland dahalkii awoodaashay وقعبتني ايدك استين دبني عيب iska dawleen igsokeyay ka darteen yes ودررتي للتاجي لدفاي على كيني طبعا كينو نبض كسري ودررتي للتاجي لدفاي على كيني طبعا كينو نبض كسري ومع ضعفها وناقة بسها وحيد عيبها لكي سعيها والدني قدوتا اللو دور ومع ضعفها وناقة بسها وحيد عيبها لكي سعيها والدني قدوتا اللو دور اللو دور صومال الآن اللو دور iminkana waxaan u yeedhayaa faarax murtiile oo laba kelmadood oo muhiima halkan inaga odhanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa salaashada guddoonsinayaa guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe aad iyo aad baan u salaamayaa iyo dhammaanba asxaabtayo halkan wada jooga waan idin salaamaya dhammaantiin ogaaska baa jooga waxaa jooga muxuu ahaaye farjar baa jooga qadaafi baa jooga waxaa jooga oo mayarkii baa jooga waxaa jooga axmed maxamed baa jooga saaxiibkii waliba igu soo xasuun madasha ayaa jooga markana maanta maxamed baa jooga aad baan wada salaamaya iyo dhammaanba inta iga soo horjeeda somaliland waan marooyi madaxweynaha salaamaya horta waxaan doonayaa halkan horteena dadka halkan isugu yimi waa siyaasiin weeye marka waana siyaasadda anigu aan ka hadlo maanta jaraa'id meel yar waxaan lagu qoray kantaalihii imaraadka hor yimid berbero oo askari soomaaliya leeyahay xamar ma gaaraya markaasuu ilaa xamar wasaaka carabku wuxuu leeyahay xamar wal yaman wal suudaan wal meel kasta way gaarayaan wal iiraan ولكن إذا يقولون الشمال مقدشو إذا يقولون قبل كوغوي قلبين ويدونا وكدونا هنا ولكن إذا يقولون جمهورية أرض الصومال وجمهورية سومالان هذا ما في مشكلة وحكينا ويا ابن حسن كي inagu somaliland baynu nahay ma maqasheen calaamada qaranka ee soomaaliya markaynu lixdankii calanka qaadanay waxay ahayd laba shabeel waa waqooyi iyo koonfur istiri weyaan socaalka cala waxaa garanaya faysal baa garanaya saasay ahayd bal waayihiin labadii shabeelow way kane kii kalaa shan dhahay kii koonfureed بلاد يا شو بلاد يا عين كلاد يا كل كلاد والقلب كان واجد ولا لا وهذا قام الاشياء يا خان هاي وهذا لما قبل من كان لما نبي له هاي قام الدقات لا شيء بينه ترى
waxa ka daran haddaynu hor somaliland nahay waxa aynu shanta soomaalida ma qabanqaabisay waxaa la yidhi waxaynu nahay isaganoo nimi shan soomaaliyeed baynu nahay waa tan adigu sii joog tanna way kan sii hay saddexdii kalaan doonayaa saddexdii kale waa jabuuti ilajiyo wajeeray caalamkaho etoobiya ku duulaay waa ku soo xiiqay marka kusoo xiiqay baan wariyo walaalo saddexdii utaag waay kale xabadayda waa iska qaadanaya wariyo waxaa ku dhahay saddex baaba doontee see midka u qabsanay waraaga meeshii u taag waayo taan bay noqotay oo jabuutina iska tagtay jabuutina etoobiyana ka tartay oo xad baa iska jiro waanu wareegsanaabee milkaygi waa sii waxaan ku dhahay aniga ma sii joogino hawa sii joogta adiga ma iska imaano hawa iska imaano saddex ma maqlayo hawa maqlayo adiga ma doonayo hawa imaano maxay garabta aniga markaa wariya ilaahay yaqaano wahaadee wariya ilaahay yaqaano والله عليه وصدق هيك لو تاغواي حبت يدون قادنيا والله يا maxaa saddex maqan hadamda ku shiga saddex rays kilo ana shaqada fadhay todoba ka dhigay maxaa ya meel alki Djibouti jubla ha gasho alki oo kala gashaan maxaa galbu ha gasho alki oo maadiga wala sida la yaha wariya ay qalin qabto marka waxaan ku yiri Soomaal shamboy ahayd shanta magacadeed shabeelladu waa labo midbaa shabagii ka degay markuu shabagii ka degay shabeelkii koonfureed ayaa shan kaleeto dhalay shantii kale waxaan lahaa Soomaal shamboy ahayd shanta magacadii ahayd Soomaal shamboy ahayd shanta magacadii ahayd shabeelladu waa labo wariyaa shabeelladu waa laboon midbaa shabagii ka degay markuu shabagii ka degay shabeelkii koonfureed ayaa shan kaleeto dhalay shadii kale waxaan lahaa abwaankii markuu shibiiri ayaa shuruushuuhadiyo ilaa shaqlayaal gabyeen shadii kale waxaan lahaa saa markaan ku idhi haddana way si socoto waxaan ku idhi koonfurey waxaan ku idhi cambarkii shalay toole ee cidada ka hesheen mar hadduu dibu caariyey cagta soo dhigi maayo waa calaacaltimaale koonfuray caqli keen iscalaanta maruun war colaanta cambarkii berigii ila cambarku waa cambar udgoon baa helmogta oo iska haystaan ba xagee ma qof baa cambar iska bixinaya ma iska bixinaya adoo faraha kaga iska bixi maayo marka cambarkii shalay toole cidada ka hesheen mar hadduu dibu caariyey cagta soo dhigi maayo oo waa calaacaltimaale koonfuray caqli keen uu carceeray waqooyi waddadu cagta saaray idinna way iscunteen way iscalaashanaysaan carruurtii mii xasuuqde dumarkii carcaraafiyo cadan bay ku jabeene inaan caawa ciyaaro calankan wala taas waliba ila koonfuray caqli keen markaa waxaan u sheegayaa siyaasiyiinta iyo dhallinyarada siyaasiyiinta weeyaan koonfur walaalaynu nahay laakiin laba waddan baynu ahayn maceebbaa laba waddan baynu ahayn labadaa waddan ku dagaalama shabeelladu waa laboon wariyaa shabeelladu waa laboon Soomaal shamboy ahayd shantaa qoys bay ahayd shabeelladu waa laboon markuu shabagii ka tegay shabeelkii koonfureed ayaa shan kaleeto dhalay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعاوة هل كان قطبت وما نسوكعين لكن واحد شرف وين إيه إن سود ويعاوة أصحاب يا يقول قالية أصحاب تانو مانتها سيد حسبي ذا كلام مرنا يحسب هبل بي كسود الركتين يحسب هبل بي كسود الركتين وأصحاب دورتي إني كلكي أركان هرمركا وكتر لابسدي قدوميه يسدا ودن كينا ودادهين أيو وقرن ماذا سومالي لان دنتي ذا ويلالنا أيو إني حوجة كسب بريان حسب جوعي وحد شعلها هنا إلى سود ويسان وحنا شعلها هاي للي يرضى كل كانوا يرينا هل كان يمادان حد وتونا نكمل ذا للي يرضى ين هذا الخسين دونا انت هسكوك كينور لما تنا وحنو وجود بين دونا ان قدوميها وياي
waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo Subeer Saxardiid qof kastaba sacabka u garaaca Cabdinaasir Cali Karaash isagana sacabka u garaaca Khadar Jaamac Maxamed Xuseen Cabdirasaaq Salabaan حسن علمي إبراهيم باشا أحمد محمد أحمد صوفي أنيس عبدي أحمد داشود سعيد سليمان عبد الرحمن حسن waxaa jira iyaguna ya يوسف عبد إبراهيم waxaa jira 3 hablood laakiin 3 hablood halkooda iska fadhiyaan waa Safiya Cabdullaahi Cali Weerar iyo Najax Axmed Mahad Cali Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed dhalinyaradani waa aqoon-yahan waxa weeye qof kastaba dee waynu soo wada garanaya intayna reer Somaliland reer England waa mudantii London aad iyo aad baan u mahadnaqayaa intii ka soo shaqaysay inay dhalinyaradaasi waxaanan jecelahay in qoladii hore ee xisbigu inay soo dhaweeyaan oo aad iyo aad u soo dhaweeyaan dhalinyarada cusub ee ku soo biirtay sacabkana u garaaca أنا waxaan rabnaa insha Allah taala inaan reform sameynaan rabnaa reform baan sameynaa si aanu dalka u nimo wax ahayd aan siyaasad u galnay ina ka tagtaan dhulkeena dhul yeelataan dhalinyarada hadda maanta soo gashay ee waxbay barteen haddaanay qaran helin ay cilmigooda ku isticmaalaan way ku kiciyaan way qaari doonaan adduunkana maanta waa aragteen oo waxa leeyahay qol kasta meesha hagaajisto hagmad dambe halkan laga sameyn karaa ma jirto waa ogtiino caruurda wal algu qaadanaya ma jirto waa in dalkeena hagaajisanaa dalkeena wuxuu u baahan yahay markaa inaan midnimad sameynaa ummad qaybsani haddii ummadda qaybsanaato waxa weeye jirku hadduu immunity ka xumaado cudurkiisa uu dili karaa bini'aadamkana dalkan haddaan ummaddu midaysneen cid kasta wayna dili kartaa markaa waa inaan dalka isku midaynaa qabyaalada la dagaalanaa frustration Somaliland meelo waxaa ka dhigatay inay press conference qabato islaantii afka isla afgaran weydaan presska weeraansa media dalkeena khatar ku haya maanta amba farmaajo hay maadaba Sheekh Shariif hay maade dibadda khatar inagama jirto khatartu maanta waa gudaheena way waxaana keenaya waxa weeye rag siyaasad galay oo kursiga qabsan moojaane aan fikrad kala lahayn Axmed Maxamed Siiraayo waa soo shaqeeyay ilaa jabhadda waa ogeeyeen wasiirnimo uu ka tagay maanta waa retire
maanta inaan inagu nidhaaho doorasha ay noo dhacdo cadowga aan iska kaashano dowladda aynu gacanta qabanno odayga aan macasalaamayno si nabadgelyo ah neerfis yaan lagu kicinin strok yaan ku dhicin laakiin inaynu dadkeena isku dhisno oynu hablo yaryaroo waxba garanayn oon weligood urur gelin oon siyaasad gelin oo wax la isku hay aan garanayn oo inuu cadow shisheeye garanayn intaan meel soo farnaan jiraha haddaan reer habeen warnahayo haddaan garxagsino hablo yaroo waxbaan garan waa yaqyaqsi waan ka yaqarsoona moogta oo rag waaweyn oo siyaasiyiin baan ag fadhiyaan oo shacabka garaacayaan waxa weeye waxaa waan baabina insha allahu tacaala insha allah waxa weeye meeshii caaqil iyo salaadiin ay qayrisha way jiriyaan laakiin meel ay ka hadlaan waa meeshii dowladdu daciif tahay waa meel insurance aanu jirin waa meel cadaalad darro jirto oo qofka aan miris lagu shaqaynayn waxaan doonaa qof kastaba in CV-giisa wax lagu shaqeeyo maaha nin in gacanta wado maaha waa in qofka cilmigiisa wax lagu baraa waa inaynu hagaajinaa cadaaladdeena cadaaladdu waa muraayadda waa meelaha reform ku samayno constitutionka waa bedelina insha allahu tacala waa dib baan u reform galeyna waa meelahan kordhiska waan ka gufayna insha allahu tacaala tacliinteenu maanta tayo ma leh leanna waxa weye macalinka joogaan taya lahayn dhaqaalahaynu maanta kama midaysna muxuu midaysan waa wadooyin baan jirin dalka isku xidhaya qudradda inooga timaada Ethiopia waxay ka bixi kartaa ceergaabo kaabishka ceergaabo intaasuu leegay awan buu leegay laakiin nima soogaasi wadaan jirin waa inaan dhulkeena isku xidhnaa wadooyinka sameyn infrastructure hagaajinaa waa inaan tacliinta xooga saarnaa education waa inaan saarnaa xooga waa inaan caafimaadka xooga saarnaa waa ina baaxmusharigu u sinaadaan wixii soo baxay mashaariic maanta laba mashruuc waaweyn baa inoo yimi waa DB World shaqaale u helmayna DB World 90 ilaa 90 kun baa ka shaqeeyaan fariya 900 kun meel weli Abu Dhabi amiin shaqaale skills kale helmayno saldhiga waa wadan yar woo soo qudayso prestige imaaraadku saldhig buu leeyahay ula jeedaan moojaane dee wadan weyn maaha laga baqma wadan muslina furii bay noo noqonaya insha allahu tacaala carabtan ka gelinay sidaan wuxuu damcay ilaahay inuu legacy ka tago oo Somaliland oo midaysan maalintii riyaal wuxuu ku yiri dal midaysan iyo waxaan kaga tagayaa yadan midaysan laakiin buuda kuma jirin isna wuxuu doonayay inuu hadda marka insha Allah aniga ii dhiibayo inuu yiraahdo waxaan ku aaga tegayaa anigoo sool iyo sanaag bariba soo xareeyey adna adkay iga tegaya insha allahu tacaala hawlaha tacaala waana ku shaqaynaynaa markaa isku kalsoonaada damdamtan iyo buraanburkan qabiilkana inaga joojiya dadkana qofka xun waa loo wacyigeliyaa lama ficiltamo hadduu yidhaaho yaa garxajiisa waxaa tahay yaa Somaliland idhaha hadday tira yaa Soomaaliya awal waxaa tahay yaa Somaliland inagu qaran baynu nahay Somaliland qaran weeye waa qaran inagu qabiil may ama Faysal Ali Waraabe imka halka in wax u doonan ciidagalaha ugu dad yar moogta laakiin maxaa ku fahmay Somaliland baan haysta waa katiiradii iska tiiradii rees ku xidhay moogta laakiin defaultka 190 way siiyeen ogaada laakiin waxaan ujeedaa inagu waxaan nahay inaan noqono alternative party xisbigii qaranka horumarka keenayay ictiraafka keenayay insha allahu tacaala horumarka keenayay barana raggaas oo meedan waxaan doonaa inaan meel kastaba qof capacity leh oo cilmigeedii leh inaan geelaan doonaa insha allahu tacaala maanta waxaan haysataa waa cilmi darro aqoon darro ay Soomaaliya socontay karti darro wax ka daran haddana cilmi qofku leeyahay wax ma wad karayo
wasiir qoro isleedahay meeshiisii ku habboonadu fadhiyaa ninkaasi cada markuu joogi jiray balaaniga aan oran jiray waxaa kaloo kale waa cuqaal baa keentay iyo suldaan baa keenay iyo reer baa la baanas gareynayayo waa waxaas wey laakiin waxaan doonaynaa inaynu sa Ethiopia oo kale aynu geyno qof kastaba meesha ku habboonaa shahaadadiisa eegno technocrats baan keenna insha allahu tacaala annagu barnaamij fiican baynu haynaa aan qabiil ku tirsaneen vision leh baan ku wadnaa dee idinkuna waxaan ka rabnaa odayga oo maslaxaadkii baragay ka baxdaa waa barkay cunayn baan leenaysaa abaartana saasa weeye qoys qof kastoo qoys waan qorshahaasaan sameynaa insha allahu tacaala sameynaa dawa wanaagsan tihiin habeen wanaagsan Britain ay soo duceeyay insha allahu tacaala wayna ka insha Allah inagoo isu soo noqon caafimaad soo noqon doona waana mahadsantahay